السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال برها بالشدة مالمهن كجرت باجرت أو هبين دويد اللايف كانت تمدي ما أنت قدام بيسنة اللي يسوي ديني أو سؤال شاء فرعون موحوها صومالي. طبعا فرعون مركين كو هادينو فراعينه وحلو جري داينستي دان ما أين هالقف marka waxa lahayd boqorro uu kamid yahay Ramses first Ramses the second Merneptah so boqorradaas waxay ahaayeen boqorradii faraacinada marka keebeynu jeednaa markaynu leenahay fircoon Soomaali miyuu ahaa haddii aynu ka hadlayno fircoonka quraanka lagu sheegay haddii aynu doonayno inaynu baadhno isagu miyuu Soomaali ahaa su-aashaasi su-aal ka muhiimsan baa jirta oo ah horta fact iyo xaqiiqa ahaan fircoon maanta waa maxay fircoon maanta waxa uu yahay nin ilaahay quraanka inoogu sheegay oo ahaa cala fil ard dhulka ku kibray fasahaadiyay dhulkii reer bani Israa'iil iyo Muuse calayhi salaam oo xaq ku sugnaa uu eryanayay kadib isagoo eryanaya oo kibir iyo dhulkii ilaahnimo soo sheegtay uu ilaahay ka daba halaagay oo badii uu ku halaagmay so ninkaas ayaa uu fircoon maanta yahay fircoon haddii aan taariikhda baadho oo aan ogaado inuu Soomaali yahay ma ka bedelaysaa xaqiiqada waxa uu maanta yahay in aaminsanay oo ah inuu ahaa daalim uu ilaahay halaagay maya isma bedelayso okay haddii aan ogaado oo sida aan iminka iyo in badan ba aynu kusoo barbaarnay taariikh ahaan inuu ahaa fircoon nin aan Soomaali ahayn wax ma iska bedelaysaa qanaacaadka aan haysto oo ah inuu fircoon daalim jaabira uu ahaa oo dhulka ku kibray oo uu ilaahay halaagay waxba iskama bedelayso so labada jeerba haddii ay jawaabteedu ay tahay inaanay waxba iska bedelayn qiimaha iyo waxa aan ka aaminsanahay fircoon maanta then su'aashani stress badan iguma hayso waxa sidaas u leeyahay waxa weeyaan walaalaha laba dhinac ay qaar badan u kala baxeen dhamaantood ma aha laakiin laba dhinac oo xaq jira oo waxaan arkayaa dhinac iyagu aad u diidan oo leeyahay fircoon Soomaali noqon una arkay inuu fircoon Soomaali noqdo mid tahdiid iyo dib ku haysa diintooda iyo qowmiyadooda iyo qolo iyaduna rabta inuu fircoon Soomaali noqdo oo aad u xiiseynaysa dadaalna ku bixinaysa sidii fircoon Soomaali uga dhigi lahaayeen labada dhinacba waa laba dhinac oo runtii yani aan laga yar fiican yahay niraahdo so haddii aad su-aasha sidan aan kuugu dhiga ay kula tahay labada dhinac aan waxba iska bedelaynin anigoo dhinaca ku horeynaya diidan inaa uu fircoon Soomaali noqdo dhinacaasi waxyaabaha ay u diidan yihiin wax kamid a religious purpose ninkanoo gaalnimo ay u necab yihiin runtiina gaal ah inay diidaan inaa uu nasabkooga soo galo su-aashani waa taariikhiyanna ma dhici karta in fircoon Soomaali ahaa anigu aqoon taariikheed oo aan u hayo oo aan ku cadaynayo inuu fircoon Soomaali ahaa ma hayo intaan taariikh ka aqaanina fircoon Soomaali inuu ahaa marnaba ma aansan maqal wax cadaynan u hayaan ma jirto laakiin ma dhici kartaa inaan anigu qaldanahay oo qofi intuu aad u baarbaaro ugu dambeyn uu gaari karo natiijo taariikheed oo ah inuu fircoon Soomaali ahaa yes was possible wax ma ka bedelaysaa aragtida fircoon ka haysto maanta 2023 waxba kama bedelayso so marka dib iguma hayso fircoon inuu Soomaali ahaa labada jeerba wuxuu yahay hadduu Soomaali yahay ahaynba wuxuu ii ahaanayaa nin gaalo ilaahay halaagay marka inuu adigana sidaa ku ahaado wax stressan aan kugu ahayn sharafna Soomaalida kama dilayo oo Soomaalidu muslim ayay maanta tahay islaamka bayna sharaf ku leedahay inuu fircoon nasabkeeda soo galaan waxba uma dhimayso sida aanay Ikrima bin Abu Jahl inuu aabihi Abu Jahl ahaa aynay saxaabinimadiisa sharaftiisa aynay waxba u yeelaynin Abu Ubayda Aamir bin Jarrah aabihi wuxuu ahaa mushrik gaala waxba sharaftiisii kama dhimayso iyo inuu ahaa amiinu hadhihi al-umma waxba sharaftiisii kama dhimayso so markaasi aynayna u arago cuqdad saasa aynayna uga sii qaban aynu heer ay gaadho inayna ku colaadino walaalaha kale ee iyaguna rumaysan inuu Soomaali ahaa marka taasi waa qolada kale ee rumaysan inuu fircoon Soomaali ahaa qolo waxaa kamid ah dabcan ma wada generalize garaynayo qaar waxaa jirta ay ka tahay taariikhiyan inay baadhaan oo ay doonayaan inay ogaadaan laakiin qaar waxaa jirta ay ka tahay oo dareemaya cuqdad nafsiyeed oo inferiority complex oo iyaga oo naftooda yasaya kadibna ku dhaqmaya sidii Soomaalidu ay oran jirtay ama buur ahaw ama buur ku tiirsanow so waxay arki waayeen taariikhdii Soomaalida oo buur noqon weyday oo heer caalami loo baranayo kadib markay taa waayeen bay yiraahdeen buur noqon weynaye buur aynu ku tiirsano oo aynu dadkaas faraacinada ee taariikhdoodii la barto aynu isxigsiino so marka validation iyo aqoonsi iyagoo ka raadinaya ay fircoon Soomaaliyeynayaan taasi haba noqoto inay taariikhdo dhan jiraan kuwa waxaan ka oran lahaa inay taas iska daayaan oo dareenkan cuqdadeed ee ku jirana ay dhinac iska dhigaan waxa weeyaan haddii aad wax baranayso xaqiiqada taariikheed wax isbedelaysa ma aha waa wax dhacay taariikhdu so ku noqosho bay leedahay iyo dib u diraasayn laakiin waa wax taariikheed oo dhacayo isbedel lahayn so inaad sideeda uga gungaadho ayna idinka daacad noqoto inaydin taariikhda Soomaalida
sideeda u daraadaysaysaan haddii dhinacaasi aad u socotaan aydan ka gungaadhaan Soomaali halkee bay asal ahaan ku abtirsataa fircooniyad noqotayaa iyo yaani adiga ku xusayn inaad had iyo jeer diyaar u ahaato inaad taariikhda xaqiiqdeeda aad qaadato haba soo saarto taariikhdu inay Soomaalidu noqoto ummad curdina oo 200 sanaba xataa aan dhaafinin qaraarkeeda inaad ku liqi karto oo ugu dambeyn diyaar u tahay inaad aqbasho xaqiiqada waxa aad tahay بدلا من أما instead of halkii aad ku noolaan lahayd wahmi muriix ah oo aad riyo aad adigu iskugu raaxaynayso oo ah inaad iska dhigto waxaanad ahayn oo aad xigsiiso mayd aad aqoonsi ka raadsato mayd madxafyada Masar maanta yaala oo isagu sharaf iyo qiimo aan iskugu filnayn xataa iska dhaaf inuu adiga ku siiyo